ليس الجمال بأسباب تزينونه، إن الجمال جمال العقل والأدب. ليس اليتيم الذي قل مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. بسم الله الرحمن الرحيم. walaalayaal waxaynu doonaynaa inaan ka hadalno qaybtii labaad oo ku saabsaneyd dastuurka sidee baynu u fiirinaynaa dhinaca sharci ahaan oo aan leenahay waxaan waa sharci, dhinaca luqad ahaan, dhinaca axkaam ahaan, dhinaca oo waajibaadkii iyo waxyaabaha uu xarimayo sida axkaama wadiciya, shuruudii iyo waxa mawaanic haddaan soo koobo axkaamtaas oo idil oo noo sheegaysa waxaan saxiix waaye iyo fasaad, waxaan doonayaa inaan ka hadlo waa aragtideena ku aadan dastuurka. Si aan u iraahdo waa ka muwaadin oo shakhsi caadi ah, waa dastuur na qancin kara. waa aragtida bulsho ahaan, aragti qof ahaan. waxaan ka fiirinaynaa ma yahay mid dhammaystiran oo aragti shaamil ah oo mutakaamil ah ma wada dastuurka, laana baahiyo bulshadeed, baahiyo qofeed, baahiyo waddan ayaa jiro, oo ha ahaato dhinaca dhaqaalaha, dhinaca bulshada, dhinaca siyaasadda, dhinaca nolosha, dhinacyadaas oo dhan, oo qawaaniintii oo dhan wuxuu u yahay halbeeg. sidaa daraaddeed ma yahay mid koobayo baahiyadii oo dhan oo aan oran karno dastuurkeenu waa dastuur noqon karo halbeeg rasmi ah. nuqdada labaad wuxuu ka hadlayaa dhinaca furuucda oo idil. farci walba maxadadaya mise magoonaya ujeedooyinkiisa iyo himiladiisa, laana hadaf ayaa jiro. farci walba wuxuu leeyahay hadaf ayuu leeyahay. hadafkiisii si fiican ma u qeexaya. midda saddexaad waxaynu leenahay furuucda dhan uu ka hadlay, oo maadaama uu halbeeg uu yahay, furuucdii dhan isku xiran yihiin, ma jiraan wax dhammaystirayo oo aan oran karno furuucdii oo dhan, qaybihii oo dhan waa isbuuxinayaan, oo wax isku xirayo ma jiraan. sidaan ogsoonahay, markaan ka qof ahaan, ka muwaadin ahaan, ka bulsho ahaan, farci kasta hadduu ku yimaado isbeddelkaas wuxuu saameynayaa dhammaan furuucdii oo idil. walidaalika aragtideedu waxay tahay, maxay tahay isbedelada? si ay furuucda dhan ay noqdaan mid mutakaamil ah. walidaalika waa inaan sameeyaa aragtideeda aragti guud ahaaneed. si kooban ahaan haddaan ku sameeyo isku xir hadalka, wax walba waxay leedahay dherer iyo balac. dhererku waa midka laba nuqdo ayuu koobsanayaa. maxay tahay saytarada iyo dabdiga macaayiirka halbeegka u noqon karo qaacida, u noqon karo halbeeg aan dhihi karo waa kulminaya. maxay tahay amaakinta iyo boosaska meelaha aan oran karo meelahaas ayuu taabanayaa qaanuunka. maxay tahay mas-uuliyaadka iyo waajibaadka iyo xuquuqda uu yeelanayo qofka muwaadinka ah. saan u iraahdo waa taxliil dhammaystiran oo halbeeg noqon karo dastuurka aynu doonayno, aan oran karo aragtida aynu doonayno. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa aragtida. maxay tahay aragtideena ku aadan markaynu ka hadlayno dastuur? aragtideena ku aadan aynu ka hadlayno halbeeg. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.
ليس الجمال بأسباب تزينونه إن الجمال جمال العقل والأدب